Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka cusub ee Kubadda TV iyo barnaamijka Bogagga Hore ee Ciyaaraha. Telefishinkan waxaad kula socon doontaan channelkeena YouTube-ka iyo weliba bogga aan Facebook-ka ku leenahay oo magacuna uu yahay Kubadda TV. Barnaamijkan Bogagga Hore ee Ciyaaraha aan ugu magac darnay waxaan idinkugu soo gudbinaynaa maalin kasta sheekooyinka ugu waaweyn ee ay qoraan bogagga ugu waaweyn ee dhinaca ciyaaraha ee qaaradda Yurub. Waxaana kaga hadli doonaa arrimaha kubadda cagta ee horyaalada Yurub iyo weliba ciyaartoyda ka ciyaara horyaaladaas. kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena Bogagga Hore oo maalin walba xiliyadan oo kale aad inooga barateen. Waxaan barnaamijkan ku eegnaa wargeysyada ugu waaweyn ee ka faalooda arrimaha ciyaaraha iyo sheekooyinka ay maanta ka qoreen waxyaabaha la xiriira dhinaca ciyaaraha. Inta aanan u gudagelin sheekooyinkooda waxaan eegaynaa natiijooyinka kulamadii koobka Champions League ee xalay dhacay iyo sida ay kooxuhu isku arkeen uguna kala baxeen lugta hore ee wareegga 16aad. labada kooxood ee Lyon iyo weliba Juventus ayaa is arkay waxaana ay ciyaartoodii ku soo idlaatay gool iyo eber oo kooxda Juventus looga adkaaday. Lyon oo gurigeeda ku ciyaareysana ay hal gool halkaas kula imaatay. ciyaartoyga Lucas Tousart ayaana u dhaliyay halka gool ee ciyaartaas laga xaqiijiyay. sidoo kale waxaa dhacday ciyaar kale oo ka dhacday magaalada Madrid ee wadanka Spain taasoo isaga hor imaadeen labada kooxood ee Real Madrid iyo Manchester City oo ka socota wadanka Ingiriiska. ciyaartaas waxay ku dhamaatay hal gool iyo labo oo looga adkaaday kooxda Real Madrid. Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne ayaa u saxiixay Manchester City labada gool ee ay ku badisay, laakiin hal gool oo kuwaas ka horeeyay waxaa u dhaliyay Real Madrid ciyaartoygooda Isco. aan markaa gudagalno dhanka iyo bogagga hore ee ciyaaraha waxaan ku horeynayaa bogga Marca ee ka soo baxa dalka Spain. wuxuu sheekadiisa maanta kuwa ugu xiisaha badan ka dhigay Manchester City waxay tijaabo ka qaaday oo ay imtixaan ka qaaday ayuu leeyahay kooxda Real Madrid oo dadka waxay tustay hadda xaaladda Real Madrid halka ay marayso. Real Madrid wuxuu leeyahay wargeysku waxay wajahaysaa dagaal adag oo ay u geli doonto Realka Champions League ee xil ciyaareedkan 2019-2020 kadib markii hal gool iyo labo gool darro ah ay kala kulantay kulankii ay la yeelatay kooxda Manchester City ee lugta hore ee 16 kooxood ee ugu dambeeyay hadda isugu soo haray tartankaas Champions League iyagoo weliba ku sugan Estadio Santiago Bernabeu. kooxda Los Blancos ayuu leeyahay wargeysku waxa ay markii hore qaadatay hoggaanka ciyaarta, laakiin waxaa isla markiiba xaaladda ka dhigay sida kale kooxda Manchester City ciyaartoydeeda oo halkii gool ee looga hormaray ku bedelay laba gool. Real Madrid dhibaatooyinkeedana wuxuu leeyahay wargeysku waxaa loogu sii daray markii ciyaartoygooda difaaca uga ciyaara ee Sergio Ramos laga siiyay kaarka casaanka ah, taasoo ka dhigan inuusan ka qayb geli doonin lugta labaad ee bisha dambe ka dhici doonta magaalada Manchester. go'aano kale oo uu qaatay Zinedine Zidane ayaa waxaa iyaguna ay ahaayeen in qaar ka mid ciyaartoyda oo dhaawac ka ahaa ama aan ku ahayn fit ciyaarta u ahayn uusan soo gelinin. sidoo kale waxaa la arkayay ciyaartoygooda Vinicius Junior oo xoogaa dhutinaya oo la socda Karim Benzema, halka ciyaartoyda kale ee Toni Kroos ee dhinaca khadka dhexe ka ciyaara iyo weliba kuwo kaleba ay ka maqnaayeen kooxda Los Blancos. haddii intaas aan uga gudubno wargeyska Marca waxaan iminka u talaabayaa dhinacaas iyo Talyaaniga. Football Italia maanta sheekooyinkiisa mid ka mid ah waxa uu uga hadlayaa
in ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus ee Aaron Ramsey uu qirtay in kooxda Olympiacos ay xalayto faa'iido weyn ka qaadatay kulankii dhexmaray labada kooxood ee qaybta ka ahaa tartanka Champions League, balse wuxuu ka digay ayuu leeyahay wargeysku in haddii Juventus ay yihiin ay iyaguna si aad ah uga faa'iideysan doonaan lugta labaad marka gurigooda la isla tago. ciyaartooygan kasoo jeeda Wales ayaa waxa uu ciyaarta soo galay daqiiqadii 62 isaga oo bedel ku yimid meeshana looga saaray ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo Miralem Pjanic, balse ma aysan u suurtagelin in uu waxba u taro kooxdiisa ciyaartaas xalayto ay guuldarada 1-0 ah kala kulantay kooxda Olympique Lyon. waxa uu laakiin sheegayaa ayuu leeyahay Aaron Ramsey oo uu ku faanay in iyaguna ay isku dayi doonaan inay waxyaabo badan ka bedelaan sida xaaladdu xalay ay ahayd marka gurigooda magaalada Turin la isla tago. iminkana daawadayaal waxaan fiirinaynaa wargeyska kale ee BBC Sports, isagana sheekooyinka uu maanta qoray wuxuu ka hadlayaa kulan dhex maray kooxaha Braga iyo waliba Rangers oo Rangers 1-0 ay ku badisay, balse marka aggregate-ka la fiiriyo labada lugba natiijada ka imaaday ay ku dhamaatay ciyaartaas 2-4 oo guush ay ku raacday kooxda Rangers. waa tartan ka mid ah horyaalka Europa League, waxaana kooxda Rangers hogaaminaya ama tababare u ah ciyaartooygii hore ee kooxda Liverpool Steven Gerrard waxa uu yiri ayuu leeyahay wargeyska BBC Sport ma ahayn wax lama filaan ah ama lala yaabo in xalayto aan guul ka gaarno ciyaartaasi aan la yeelanay kooxda Braga, waayo wuxuu leeyahay dad ciyaar aad u adag oo fiican ayaan soo bandhignay. haddana waxa ay kooxdiisa Rangers u gudubtay wareega 16aad ee koobka ama tartanka Europa League. Gerrard kooxdiisu waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u muuqatay in ay heer sare tahay, wuxuuna Steven Gerrard qirtay in kulanka xalayto uu ciyaaray uu ka duwanaa kulamada kale ee horyaalka wadankiisa ee kooxdu ay ku jirto, laakiinse wuxuu sheegay in ay rajo ka leeyihiin in horey ay u sii socdaan. qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa ee barnaamijka bogagga hore daawadayaal oo aad kala socotaan kubadda TV. iminkana waxaan eegayaa isna wargeyska online-ka wax ku qora Metro, waxa uu ka leeyahay arrimaha ciyaaraha maanta. wuxuu leeyahay ciwaankan uu ku leeyahay Rio Ferdinand wuxuu kooxda Liverpool ku qeexay inay tahay kooxda isagu uu aadka ugu maleynayo inay ku guuleysan doonto horyaalka Champions League. Rio Ferdinand uu qirtay in Liverpool ay tahay markan mid nasiib u yeelan karta inay mar kale qaado sanadkii labaad ee isku xiga Champions League, laakiin wuxuu leeyahay wargeysku Jurgen Klopp waxa uu u baahan yahay in uu kooxdiisa ka badbaadiyo guul darro 1-0 ah oo ay kala kulmeen lugtii hore tartanka oo la yeesheen kooxda Atletico Madrid ee wadanka Spain. hadiiba ay doonayaan in ay 8 kooxood ee ugu dambeysa tartanka u gudbaan waa in ay guul darradaas u bedelaan guul, laakiin faa'iidada ay qabaan ayuu leeyahay wargeysku waxa weeye in markan lugta labaad lagu ciyaari doono garoonka Anfield ee wadanka Ingiriiska. waxaa kale oo aan la dafiri karin oo xusid mudan ayuu leeyahay wargeysku in kooxda Bayern Munich iyaduna ay muujisay awoodeeda la xiriirta sida ay koobkan ugu guuleysan doonto, maadaama lugtii hore ay kooxda Chelsea uga badisay 3-0. Chelsea oo gurigeeda ku sugan maalintii Isniinta ama maqribnimadii aan iraahday Talaadada. waxaa kale oo kooxaha ugu cadcad ka mid ah ayuu leeyahay tartankan kooxda Borussia Dortmund oo iyadana Paris Saint-Germain uga badisay 2-1, halka dhanka kalena Manchester City ay iyaduna 2-1 ku garaacday kooxda Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu tanka weyn horyaalkan Champions League. sidoo kalena waxaa iyaduna dabcan Juventus ay 1-0 guul darro ah kala kulantay kooxda Lyon. dhammaan kooxahaasna mid walba waxay u xusul doobeysaa sidii ay u xaqiijin lahayd in koobkan ay ku guuleysato, balse ma laga yaabaa ayuu leeyahay wargeysku in Liverpool ay difaacato koobkan oo sanadkii hore ay iyadu qaadatay. Daily Mail ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekooyinka maanta uu qoray. waxaan kasoo xulanay Frank Lampard, tababaraha kooxda Chelsea,
waxa uu doonayaa inuu iibiyo 8 ciyaartooy oo ka mid ah kooxda Chelsea kadibna uu kooxdiisa dib u dhisto. waxaa ka mid ah ciyaartooyda uu eryayo goolhaye Kepa iyo weliba sidoo kale difaacooda Jorginho iyo Ross Barkley iyo kuwo kale oo iyaguna fara badan oo ka mid ah kooxda ay hadda ku ciyaarto Chelsea. tababaraha Chelsea Frank Lampard wuxuu doonayaa in uu iska diro 8 ciyaartooy, waxaana 8daas ciyaartooy uu wargeysku ku tilmaamay inay kala yihiin Kepa Arrizabalaga oo ah goolhayaha maadaama goolhayahaas muddooyinkii dambe qancin waayey tababarihiisa. sidoo kale Ross Barkley, Jorginho, Kurt Zouma, Willian, Pedro iyo weliba sidoo kale labada ciyaartooy ee ka ciyaarta dhinaca dambe ee Marcos Alonso iyo weliba Emerson. dhammaantoodba waxaa laga yaabaa in dhammaadka xilli ciyaareedkan ay isaga huleelaan kooxda Chelsea markaas ay raadsato ciyaartooydii kale ee uu Frank Lampard kooxdiisa dib ugu dhisi lahaa. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena bogagga hore ee ciyaaraha. waxaad kala socoteen TV-ga Kubadda TV, anigoo Cabdishakuur Casoowe ah ayaa idiin soo jeedinayay. dhanka farsamada iyo soo saaristuba waa Morash. inta aan barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa amaana Allah.